halkan waxaan ku arkaynaa biliqadii baabuurtii wadada waxa maraya waa biliqadii baabuurtii ka timid laga soo dhacay dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee uu haraagi Cabdi Maxamed Cumar la soo dhacay sida ku arkaysaan baabuurta waxa galbeeyay ciidamada booliska Soomaaliland waxaad ku arkaysaan baabuurtii waad aragtaa gaariga waxa ku qoran heego waxaad arkaysaan waa baabuurtii gaariga waad arkaysaan heego waad arkaysaan baabuurta waxaad arkaysaan baabuurta kuwa Cabdi Maxamed Cumar dhabarka kaga qoran waad aragtaan baabuurta أنا أحتني مكبرتنا أفعل دنيو سألكوا أركيسان واحد باورتها أي صعدان يعني واحد باورتها صعدان والله ده صدعي باورتها واحد أكيد دونتان مجا عبد محمد عمر باكو قرن CMC واحد قرن هيجو واحد قرن وباورتي لقى صدعي دولة ديجان الصومالية إثيوبيا waxaad arkaysaan halkaas baska markaan dhaafno waxaad arki doontaan wax ku qoran waad arki doontaan waxay dhex marayaan bartamaha magaalada Hargeysa hadda buurta kala saxan bay marayaan baabuurta waxaad ku arkaysaan Cabdi Maxamed Cumar waxaad arki doontaan baabuurtan waa baabuurtii laga soo dhacay ee soo boobeen taliskii مقرب كهاء وهجمنا عبد محمد عمر يجي عبكي وحكوا أركز هالكم هو CMC حاجة كلا وحكوا قرن هيجو وهذا كدون تان إن وحكوا أركز هيجو باورتن وحكا صوت عي باورتن وحلقة صوت عي يا تيجا وتاريخ وتاه نينك معجقة وحاسو كتاه in baabuurtii qaranka ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya maanta iyaga oo farxada lagu qabto magaalada Hargeysa waanta qole la qabtay waxaana loo soo sheegay magaalada Burco sida yihiin waxa la sheegayaa meelo ka mid ah dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya siiba degmooyinka Qabri Bayax iyaga oo ku qoray jabhadooda amba dawladda macangaga ah ee boololeysa ogaadeenka onolaf iyagoo ku qoran ayaa joogaan gaarigan hor socda waa aragtaa waa baabuurtii shicibka oo la soo dhacay oo la soo boobay oo ciidamada Soomaaliland ay gacanta ku dhigeen gaarigan haddana hor aragtaa qaar waa gawaarida shacabka qaarna waa gawaarida dawladda iyo qaar baabuurtii hay'adaha waad aragtaa halkaa waxa ku qoran heego waad aragtaa heego iyo Cabdi Maxamed Cumar baa ku qoran baabuurtan waxa ku aragtaa noocan waxa ku aragtaa wadigaaka waad aragtaa hadda waxa ku qoran heego Cabdi Maxamed Cumar baa ku qoran waad aragtaan waa baabuurtii dawladda waa lambar 4 waa baabuurtii dawladda waa baabuurtii ummadda lagu hadeegayay talisku markii waa markii ugu horeysay ee dawladda wadan weyn ah Itoobiya ay ka dhacaan waxan oo kale ceebtan oo kale sekada dhan iyo waxa dhan inaga horeeya waxa weeyaan baabuurtii ay u dhacay ee baabuurta la soo dhacay runtii waxa jira Burco waxa jira ismaamul goboleedka Puntland ayaa wax lagu boobay inta leeg waxa jira xuduudahan Soomaaliland oo dhan alay baday iyo degmooyinka la xadka ah ilaa gaashaam ka gaarsi saasay biliqadu taala waxa la arkaysaa macagnimadii Cabdi Maxamed Cumar inuu waxa kaga tagay iyo dhibaatada maanta aad arkaysaan inta aad arkaysaan ya waad aragtaan waa kuwa saas lagu xareynaya waxaana lagu weelin doonaa dawladda federaalka Itoobiya waayo biliqa hadii biliqa lagu dhiso waxay noqotaa haddana biliqa dib loo celiyo waa kuwa waad aragtaan waa bartamaha magaalada Hargeysa waxa ka dhaxmarayaan ya amaan Allah waa sidaa iyo hal isku ogaado Soomaali inay ogaadeen dan u hayn Soomaali galbeed waxaan u sheegaynaa inuu ogaadeen dan u hayn ay yihiin kooda madaxweynaha iyo kooda duur ku jira iyo kooda askari burcad u taagan ummadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya inay baabiyaan waa wax laga naxo qarankii dhisnaa caasimadii dawladda deegaanka niman u dhalanay saas baa uu kula xarray
waxaan leeyahay dadka deeg u dhashay gobolka Jigjiga inay isku dubnaadaan oo ay u soo jeesadaan danaha qarankooda ilaashadaan caasimadooda ilaashadaan gobolkooda waxa laga dhisay gobollo kale runtii kama xumin laakiin waxay tahay cawaaqib xumada maanta ay ku dhaqmeen taliska Cabdi Maxamed Cumar Cabdiilay